toddobaad ka hor waxaa magaalada Hargeysa soo gaaray wafdi madax dhaqameed oo ka yimi magaalada Muqdisho kuwaas oo doonaya inay dhexdhexaadiyaan xukuumadda Somaliland iyo garaadada gobolka Sool oo ah dhinacyada u dhaxeeyo dagaalka magaalada Laascaanood ka bilaabmay 6 bishii February ee sanadkani. wafdigani oo hogaaminayo Ugaas Maxamuud Ugaas Cali ayaa bishii March waxay tageen magaalada Laascaanood iyagoo halkaasi kula kulmay madaxda dhaqanka isla markaasina waxay booqdeen goobaha waxyeeladu ay ka soo gaadhay dagaalka. wafdiga la filayay inay u soo kicitimaan dhanka magaalada Hargeysa ayaa waxay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho halkaas oo la sheegay inay wada tashiyo kula yeesheen beesha caalamka iyo madaxda sare dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyadaasi oo danaynayeen xaaladda Laascaanood oo hela xal waara. warmurtiyada ay dawladda Mareykanku soo saartay 30kii bishii March ayaa waxay ku sheegtay inay soo dhaweynayso sida madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay uga go'an tahay in magaalada Hargeysa uu ku qaabilo odayaasha dhaqanka ee ka socda Muqdisho. wafdigana ayaa magaalada Hargeysa maalmihii ugu dambeeyay waxay kulamo kula yeesheen shirgudoonka golaha guurtida iyo xubno madax dhaqameed oo madaxweynuhu hore ugu xil saaray arrinta Laascaanood. saate waxay si weyn u danaynayaan inay la kulmaan madaxweynaha si ay u gaarsiiyaan fariinta ay ka wadaan beesha caalamka oo dadaalkooda dabada ka riixaysa. lama oga inay la kulmi doonaan madaxweyne Muuse Biixi iyo in kale. hore waxa uu dhicisoobay dadaal nabadeed oo ay waday dawladda Itoobiya oo wakiil ka ahayd beesha caalamka iyadoo saraakiil sare oo ka socotay xukuumadda Addis Ababa ay booqdeen magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe oo ay kula kala kulmeen madaxda Somaliland iyo garaadada gobolka Sool. xukuumadda Somaliland waxay doonaysaa in madaxda dhaqanku ay noqdaan kuwa la kulmaya hogaanka dhaqanka ee gobolka Sool halka garaadaduna ay doonayaan in cid ay la fadhiisanayaan ay noqoto xukuumadda kasoo shuruud ay ku xidheen wada hadalka isla markaasina ay soo jeediyeen in marka hore ciidamada Somaliland la isugu geeyo degmada Og oo aad uga durugsan magaalada Laascaanood. arrintaasina waxa si cad u diiday madaxweynaha Somaliland oo bishii aynu ka soo gudubnay wada hadal la yeeshay wakiilo ka socda beesha caalamka. jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa waxay sheegtay in dad ka badan 200,000 oo qof ay ku barakaceen dagaalka Laascaanood laakiin tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaan la ogeyn maadaama dhinacyada dagaalamaya wali aanay la wadaagin warbaahinta wax macluumaad ah oo la xidhiidha arrintaasi. abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash ah. si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga e-dahab. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel